بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dadkeen meel walba joogteen caafimaad waara in rajeyna anagoo weli ku guda jirno mawduucyadeen psychology-ga sida qotada dheer uga hadlaynay saameynta psychology ee nolosha ku leeyahay qaybteeda saddexaad maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo shaqo la'aanta saameynta ee qofka ku leedahay kalsoonidiisa asaga oo isku qabo iyo shakhsiyadiisa maxay saameyn ku leedahay caam ahaan marka ka hadlayna shaqo la'aan definition keeda ama macnaheedu way ka macno weyn tahay qofkan inay lacag la'aan hayso kaliya ma ahan dhibka haysto in ay tahay lacag la'aan kaliya laakiin waa macno uu ka macno weyn yahay ama uu ka xanuun badan yahay waxay si toos ah ama si qoto dheer u saameynaysaa qofka nafsadiisa soo u dareemayo ama sida uu isku arkayo iyo caafimaadkiisa mental health-giisa guud ahaaneed haddaa sii daadegane wadankeena ama dhaqan ahaan waxaa jiro in nala kusoo koriyey in nala ka rabo expectations ama rajooyin ka tiro badan kuwa awoodeena ah marka qofkii haddii rajooyin badan laga sugayo ama familkii oo rabo inuu qabto la wareego ama laga rabo in uu wax soo saar sameeyo wixiina uusan gaaraynin waxay u keenaysaa dhibaatooyin badan marka waxaa rabaa inaan u sharaxo qaabka ay dhibaatooyinka qofkan maskaxiyan ama caqliyan ugu bilaabanayaan sida ay ugu sii weynaanayaan iyo qaar ka mid ah istaraatiijiyo ama xirfado oo qofka iskaga caawin karo inuu dhibaatooyinkaas iskaga hortago sababtoo ah waxyaabaha qaar inay ku haystaan markaa fahamtid waxay furo u tahay inaa xal u heshid processka oo qofka psychological inuu u dhibtoodo markay shaqo la'aanta ku dhacdo marka ugu horeyso waxaa waaye qofkan ardayga intuu wax baranayo ama 4 sano wax baranayo wuxuu interest weyn ku yahay ama hami weyn u haya ama uu aaminsan yahay jaamacadda markuu ka baxo in uu shaqo helayo yani safarkaas oo ku guda jiro in uu wax baranayo mentality-giisa iyo jiritaankiisa wuxuu aaminsan yahay in oo waxaan uu baranayo ku shaqaysto bari waxaa kaloo ku dhex jiro qofka bini'aadanka wax u sharaxayo qofnimadiisa ama kalsoonida oo asaga isku qabo muddadaas oo ku dhex jiro safarka oo wax ku baranayo taas marka waxay ku abuureysaa qofkii halkii rejection oo soo helabo in mental health-giisa halkii diidmo oo soo helo ama interview inuu meel u aaday ama qaraabadii wax ka rajeynayo shaqo inuu ka helo markuu wixii ka waayo waqti ka dambeeya waxaa dhaawac soo gaarayo qofka jiritaankiisa iyo self esteemkiisa taas iyadana waxaa la sii socoto su-aalihii dadkii ay weydiinayeen ama mujtamaci rajada oo kala hay oo dhehayso waa dhamaysay jaamacadee maxaa kugu dhacay ma shaqaynaysid miya dadka intay weydiinayaan asaga shakhsi ahaan waxaa ku abuurmayo su-aalo oo controlkiisa ka baxsan oo isweydiinayo wixii oo soo bartay wax inuusan ku haynin ama maxay shaqo la'aanta ugu dhacaysaa ama inuu asaga iska shakiyo kalsoonidiisa ka shakiyo nasiibkiisa ka shakiyo yani process waxay soo maraysaa qofka in self esteemkiisa hoos u dhaco ama kalsoonida isku qabo hoos u dhacdo markii laga hadlayo dhankan shaqo la'aanta ma ahan mid hal mar qofka oo isla marka kusoo degayso laakiin noloshaas oo ku dhex nool yahay intuu shaqada raadinayo caqabadaha ka hor imaanayo iyo su-aalaha mujtamaca ay weydiinayaan iyo shakiyaasha nafsadiisa ku dhalanaya waxay noqonayaan qof yani wax tartiib isku saaran ilaa oo qofkii ku weynaato wixii oo ay noqoto wax asaga uusan maamuli karin maamulkiisa ka baxsan sida inuu noqdo overthinking ama inuu noqdo qof markaas ka niyad jabay qaababka nolosha yani qaababka shaqada loo raadinayo isla markaasna waxa ku abuurmaya qofkii in uu comparing sameeyo waxaa jira dad isku lood la yahay isku mar la soo baxay hadday kaa horumaraan ama fursado kale ay helaan inay imaado isbarbardhig qofkaas fasaas oo helay fursadaada oo 3 sano fadhisaa 2 sano fadhisaa maxaa haysaa yani waxay bilaabeen nafsadii inay isweydiiso isbarbardhig dhowr jeerna casharadii asoo bixin jiray waxaa ka hadlay haddii mar nafsada bilowdo in comparing ay sameyso ama isbarbardhig ay sameyso waxay ka mashquuleysaa wax soo saarkii ay lahayd ama mindset wixii la dhahaa in qofka caqliyan oo markaas oo u fadhiyo midda kale oo qofku imaanaysa waxaa waa in purpose oo waayo yani wax macnawiyan u caddeeyo ama fahamsiiyo nolosha oo markaas ku jiro yani waxaa laga yaabaa qofkii haddiiba oo markaas shaqaynaynin inuu isku arko qof worthless ama self worthkiisa ay maqan tahay oo qiimo ka dhex lahayn bulshada waxaa kaloo imaanaysa inuu qofkii isweydiiyo su-aasha ugu weyn oo maxaa qiimo ah oo hayaa haddaanan ba shaqaynaynin ama maxay 4 sano 5 sano iga soo qasaartay haddii aanan ba shaqaynaynin iidan waxay noqonaysaa madow ama dhaawac mental health oo qofkii ku weynaanayo qaabkay maskaxdiisa u shaqaynaysay ama qaabkay maskaxdiisa u fikiraysay
midaas markoo soo mar hadan stepka ku sii xigo oo sii maray waxay tahay inay u imaadaan xanuuno nafsiyan ama depression ama anxiety walwalna mar walba mustaqbalkoo la xiriira ama wax weysaa ama noloshaada inta ku dhamaataa ama dadka wax qabsan waaya aa noqota yani wax badan inta ka hadlaa in ka badan dadkas qof kasta ka dhex buuxeyso maskaxdiisa markii oo laga hadlo dadka dhibaatooyinka ka hadlaaya taabanaya ama ay haysato marka hamigiisii oo weynaay markoo jaamacadda dhiganayay jaamacaddii markii oo ka baxay opportunities ama fursadihii shaqadii oo nasiib uu u heli waayey ama diidmooyin badan oo lasoo diiday iyo su'aalo badan oo mujtamaci weydiinayeen iyo asagii su'aalis weydiinayo wax badanaa iskaashanayo oo qofkii ku noqonayo madow ama dhaawac ku dhex jiro caafimaadkiisa caqli ahaaneed ama caafimaadkiisa psychology marka waxa uu imaanayo ama toos oo u wajahaya walwal ama niyad jab ama inuu dadka ka hooseeyo waxaa laga yaabaa in asaga naftirkiisa oo iscambaareeyo qofkii oo dhaho aniga ma fiicni ama dadka kale fursadaha dadka way raadsadeen aniga ma raadsan karin fursad yani in adiga isku soo jeesatid ay imaanayso iyadoo toos u abaareyso inay noqoto wax la xiriiro depressionka midaas waxaa kusii xigayso qofkii inuu asaga social withdrawal sameeyo maadaama bulshadii ay wax badan ku weydiinayso adigina aadan u jeedin waxtar a samaynaysid qofkii automatically ama uncontrolled ama asagoo is ogeyn bulshadii oo ka xaroona isolation sameynaa yani qofka markuu isolation sameynayana waxay tahay dhaawaca haysto uu ka mug badan yahay sharaxaad ama inuu qof aanan dhibkaas haysanin qiyaaso yani qofkii wuxuu ka dhumanayaa mujtamaci waxay noqonaya inuu qolku inta oo banaanada fadhiisanayo ama wax raadinayo inuu ka niyad jabo oo gadaal u aruuro oo ka gaabsado noloshii iyagoo markaas dareemaya inay waxba qiimo lahayn maxaa kaloo imaanaya marka riskiga badanaa markaas qofka kusoo haysta waxay tahay in dareenadiisa oo u fahmo qofkan inuu yahay qof inadequacy ama qof aan dhamaystirnayn in caafimaadkiisa oo caqliyan oo inta badan isku bedelo caafimaad jismiyan yani qof markasta gaas haysto ama qof mar walbo si kastoo bulshada ugu dhex jiro dadka la da-aada niyad ahaan u maleeyo inuu ka liito waxaa kaloo dareemayaa markii ama familka qofka dhinta ama qofka dhaawacmo ama wax laska rabo famil ahaan in uusan ka qayb qaadan karin so mar walba waxay noqonaya marka depressionkii iyo anxietygii inuu qofkii ku dhex abuurmo oo dhaawacmo waxaa rabaa markaad inaan waxyar faahfaahin ka dhiibo maxaa logic oo qofkii asaga shaqadii markaas bankariyo wax ku xiran waaye jaanis laakiin qofkan si jiritaankiisa iyo qiimaha ay nafsadiisa leedahay oo uu ogaado ama noloshii maadaama waqtigiisii oo nolosha waqtiga ku leenahay waxaan go'aamin karna ma aha laakiin waxaan raadsan karnaa ways badan ama dariiqado badan aan si nabad lagu noolaan karno marka maxaa u macquulsan psychologically ahaan ama point of view dhinac wax laga fiirinayo oo qofka ka bedeli karaa si oo iskaga caawiyo dhibaatooyinka nafsiga ee kasoo wajahayo dhanka mujtamaca iyo shaqo la'aanta qofka marka ku horta inuu ogaado qiimahaaga inaysan ku xirneen shaqo inaa heshid yani kow in shakhsiyad ahaan adiga marka kow ama wax baranaysid ha ahaato ama shaqo raadinaysa ha ahaato inaanan isku xirin jiritaankaaga iyo dadnimadaada iyo qiimahaaga in aysan adeynaynin inaad shaqo heshid inaadan shaqo helin ama wax $100 200 yani marka yani wax ugu yar xataa inaad samaynaysid inaad ku dhiiratid iyadoo qalad ahayn yani ama waxa aynan mar walbo in jiritaankaaga oosan marnaba kaaga xirmin waxa aad kasbanaysid inta ay leegyihiin iyo qaabkii ay yihiin inaad mar walba kala saartid wax isku xiran inaysan ahayn mar walba waxaa u fahamtaa successka ama guusha in aysan ahayn financial income yani adiga inaad wax gaartay ama heer aad gaartay ama rajadaada ay sii socoto in mar walba aysan ku xirneen in income aad leedahay sababtoo waxaa laga yaabaa mararka qaar haddaa income-ka heshid xataa in nafsadii aysan aqbali karin meeshaas ay taagan tahay marba marka kasii dambaysa ee usii rabto successka ee usii arkayso wax ka maqan laakiin aadan u arkaynin wax markaas joogo waxaa kaloo jiro qofka bini'aadanka in dhowr mar saa usoo sheegay jirka kaliya oosan ka koreynin caqliyadiisa inay korta in loo baahan yahay marka in qofkii waxyaabahan oo soo maray uu arko in uu ku koraayo caqli ahaan
intaa u fahmi lahayn diiditaanka shaqooyinka interview intaa ogalna nolola soo diidaayo ama inaa inta hami yar aragno oo wixii naga noqonayaan intaa u fahmi lahayn wax anaga naga socdo ama caqabad anaga isku keenayno in aan u fahamno in ay tahay wax ku kordhaya ama ku weynaanaya baaxadda ee maskaxdeena leedahay ama aqliyadeeda ay leedahay ama qaabka u fikirayno oo mar walba ka fogaado 2 sano ama 3 sano kahor sida aan u fikirayno mar walba in aan awood u leedahay in aan isku mashquulisid skills cusub in aan baratid ama aadan dhihin maxaa wax ka baranaya ama waxbarashada micno ma lahan hadda aniga inta aan ku dhex jiro mujtamaca ama dadka ii imaanayo waxaa arkay dad badan oo wax barteen oo haddeertaan niyad ahaan bilaabayo dadka hadda wax baranaya inay weyga waxbarashada si qaldan ugu tilmaamaan midaas oo ay ka tahay yani ma ka ahan qofkan kale in oo dhaawacaan ama ay horumar u rabin laakiin asaga wuxuu isku muuqdaa failure inuu noqday yani aniga buux ma haye meeshaan lugooyo waaye waxaan wax jira maahan waxyaabo kale ka fiican يعني already in oo isdhaho adiga waaba ku dhex dhimata meesha qofkan walaalka ay ka ilaalin in qofka mar walba hadii ay soo marto fursad shaqo oo ku apply gareyn karo inuu marnaba ka niyad jabin yani in mar walba oo awood u leeyahay oo diyaar u yahay fursadaha shaqo inuu soo baxo oo san ku la barbar dhigintii hore taas buu lagu diiday intaas oo sana lagu diiday tan waxay ku noqonaysaa ma yani in ay fursad kasta ah heshid ka faa'iideysatid in mar walba ahaatid social connected wala waxa fahmi karaa khibrad ahaan ama psychologist ahaan in mujtamaca kulligood aysan ku wada heelin doonin markay dhibaato oo shaqo la'aan ay ku hayso laakiin laazim dada jiro diyaar ku leh inay ku fahmaan caqabada ku haysato marka in aad dadka connected la ahaatid ama saaxiibada qaar ku qaas ah la jirtid yani aad ku sugatid waqtigaagii oo ka gaari lahayd hamigaaga wuxuu ahaay marka inta aad dadka ka wada xaroon lahayd wajiga ka qarsan lahayd in wixii ku dhaawacayna aad ka fogaatid wixii ku motivate gareynaya ama ku dhiirigelinaya aad u dhawaatid intii aad ka xaroon lahayd ama isolation ama adiga kaliga meel isku xiri lahayd midda kale in wixii aad baratay aad raadinin inaad ku shaqaysid yani waxa aad maanta shahaadada aan soo qaatay 4 sano 5 sano 6 sano aan soo baranayay in aysan ku xakameynin oo aysan ku diidin shaqooyin kale oo badan inaad qabatid ina adiga nafsadaada is ogaatid qaabka shaqada u qaban kartid ina is ogaatid maxaa daciif ku tahay maxaa ku fiican tahay time on time ma tahay dadka kale ma dhaxgali kartaa waqti dheer ma shaqeyn kartaa yani shaqadii inaadan u fiirinin lacag ama hami dheer ama nooca ay tahay ama aniga waxaan bartay waxaan ma ka shaqeynaa in mar walba ay aqliyadaada shaqo u diyaartahay marka hadii aad toos isku soo koobo macnaha oo casharka maanta aan rabay inaan soo gudbiyo wax jiri doono ama jiro ama adduunyada ka jira waaye in qofka shaqo la'aan ay haysato ama financially ama income-kiisa ama lacagta soo helay ay tahay mid xadidan in la eedayo haddana waa wax jiro soo jiri doono marka ma aha wax maanta adiga ka bilowday hadaa si kasta isku silcisid isku ariirisid ama overthinking fakar badan kuugu dhasho ama walwal badan kuugu dhasho ma ahan inuu maanta adiga micno gooni kuu samaynayo ama dadka ka dambeeyay ay ka joogsanayaan ama ay dad hore u soo marin qaabka ay nolosha u socoto aba waxay tahay struggle type inuu jiro hadii aadan soo arkin waqtiga aadan dhibtoonin aqliyan ma koreysid mana fahmaysid qaabka nolosha u socoto qof walba waxa uu rajeynaa meesha uu rajeynayo qaabka uu rajeynayo inuu caafimaad ku gaaro asagoo mental health-giisa caafimaad qabo kalsoonidiisa ka sareyso hadii intaas wax ka awood yani intaas wax ka awood badan hadii ku haystaan oo aadan xalin karin xarunteena dawr mar walba waxay diyaar ku la tahay in ay ka caawiso ku dhageysato wax badan ku fahamsiiso waxaan rajeynayaa hadartaan inaan wax ka fahamteen casharkeyga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatu.